qayldaan ayaa isqabsatay daliya dibadda iyadoo dadka muqdisho ay soo tabinayaan ama ay ka hadlayaan labadii isu yimaadaba in mashruuca dhismaha wadada isku xirayso muqdisho iyo afgooy loo wareejiyay degmada Dayniile wadada isku xirayso iyo muqdisho war badan waxa gelmiyo dhamaanto deegaanka waxaan maranayaa iyo ummadda muslimka ah in jidkaan waxtar doono oo noqon doono gudoomiyaha maanta oo dhax dhigana waa ku mahadsan yahay inta ka qayb qaadatay iyo inta hadda u taagan iyo inta ka qayb qaadan doonto ayagana waa u mahadcelinaynaa dad waxaa jira muddo badan ka soo shaqeeyay oo dhalinyaro iyo haween iyo odayaal inta badan iyo xildhibaano waa ku mahadsan ayaguna shaqada ay ka soo qaateen jidkaan in uu furmo oo dhismo insha Allah inta kalena waxaan rajaynaynaa inay hadda ka qayb qaadan doonaan waana mahadsantihiin dhammaan farxadda aan soo maanta ku mahadsantihiin مدن الجمهورية اسمع كان في بورك كقران وحكوا ذا قيد قليا مامورك قبل كبنادل iyo shacabka ku nool degmada Dayniile waxaanti ayagu ay aruursanayaan doorkoodana ay ku qaadanayaan deegaankoodana ay ku dhisayaan waxaan jeclahay inaan siiyo marka hore gudoomiyaha maamulka maaliyadda Ibrahim soo dhaw Ibrahim Madan dhinaca kalena ma taqaanaa mashruucii wado loogu talagalay inay ka soo baxdo stadium muqdisho oo ay calakamin soo marto oo ay xamar bilo dhex marto ama fi aakhiro ay furloos halkaas ka gasho oo kadibna hoos ii dhacdo oo ilaa tiyaatarka socoto ayaa leeyahay dhaqaale loogu talagalay ayaa waxa loo weeciyay idana degmada Dayniile waxa dhaqaalahaasi lagu dhisay ayaa leeyahay ama lacagta loogu talagalay wadadaasi garoon diyaaradeed qayladaanta kale ee muqdisho taala waxa ay tahay in halka laga dhisayo garoonka diyaaradaha ee Dayniile loo burburiyay goofaf ay leeyihiin dad u dhashay qabiilada Habargidir iyo Abgaal iyo Wacdaan iyo Murugsada laftooda dadkaasi oo aan haba yaraatee wax tixgelin la siin ama aan lagala hadal inta aan goofafkooda la gelin cagaf gudoomiyaha degmada Dayniile ninkii la yiraahdo Jaafar waa nin aad iyo aad u fiican oo murugsadaha kale marka la fiiriyo siyaasiyiintooda iyo odayaashooda ka dabeecad duwan tirka 3 jeer ayaan la hadlay wuxuu ila hadlay si gobadnimo leh laakiin waxa ay muuqata in Jaafar uu saaran yahay cadays isaga ka awood badan rag odayaal oo beesha Mantaan Cabdulle iyo Maxamed Muuse u dhashay ayaa isoo wacay waxay igu yiraahdeen goofteeni waa la burburiyay garoonka mataqaan diyaaradaha Dayniile ayaa laga dhisayaa annaguna waxba mataqaan galama hadal xooga nolol sheegtay qori caaradii markaas ayaan Jaafar wacay Jaafar wuxuu igu yiri waa run gooftooda waa burburinay cagaf baan gelinay garoon diyaaradeed baa laga dhisayaa ranweygi baa ku yimid laakiin waxaan diyaar u nahay dadkaas inaan u lacagayno gooftooda oo qiimaha uu joogaan mataqaanaa gooftii aan mataqaanaa ka siino waxaan kaloo diyaar u nahay inaan dhul ugu bedelno marka ninkaas waa ragga dhif iyo qaliilka ah ee marka loo fiiriyo siyaasiyiinta hawiyaha ragga ugu cadcad weeyo oo mataqaanaa qofka furcadi u la hadlaya laakiin waxaas leeyahay odayga isagana cadaadiska weyn ayaa saaran laakiin xantii iyo guuxii ayaa cirka isku shareeray kadib markii maanta la arkay in wadadii isku xiraysay muqdisho iyo Dayniile xariga laga jaray oo waxa lagu eedeeyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre leeyahay Xasan Cali Khayre baashi qabyaalada ahayd ay ku jirtay ee muddo uu qarsanayay saacadihii ugu dambeeyay ama bilihii ugu dambeeyay oo ayuu ka qaaday oo mashaariicdii oo dhan Dayniile ayuu u wareejiyay oo waxa la leeyahay mataqaanaa Xasan Cali Khayre waa ka la yiri mataqaanaa mashruucii mataqaanaa joojiyay mashruucii wadadii isku xiraysay muqdisho afgooye oo la yiri xaalad amaan awgeed la moodi karo laakiin mashruuca wadada isku xirayso Dayniile ayaa loo weeciyay leeyahay muqdisho oo odayaal murugsada ayuu Xasan Cali Khayre diray xaafadda la Daar Salaam ay saraakiishii al-shabaab kula kulmeen halkaas ay lacagti ku bixiyeen cashuurta ahayd waxay ka codsadeen inay wadada dhistaan oo aan shaqaalaha wadada dhisay dhibaateyn marka sheekada ugu yaabka badan ee muqdisho ka socoto waa taa Vai,
sheekada kale ayaab kale waxa weeye sababaha loo dhisay garoonka diyaaradaha ee Daynil waxa la yiri waxa weeye in diyaaradaha qaadka sida ka soo degaan iyo diyaaradaha localka ah wixii diyaarada ah ee local ah waxay ka digi doonaan Daynil diyaaradaha qaadka keenana waxay ka digi doonaan Daynil diyaaradaha caalamiga ah oo kaliya ayaa garoonka Muqdisho ee Aadan Cabdullaahi Cismaan ka digi doona marka waxa kale la isweydiinayaa qorshihii ku saabsanaa dhismaha garoonka laga dhisayay Isiley halkuu ku dambeeyay kaasi muguba taaba sheekadiisa saysa ku dhici kartaa dhaqaale loogu talagalay in lagu dhiso wado isku xiraysa Muqdisho Afgooye in Daynil loo wareejiyo سياسة كل عكتا دقالي لو تلقى الوس ودك صوب بحث استادي مقدشو أو حمر بلا ما في آخر مريسي أو فلورنس مريسي أو هالكا تياتر كجليسي إن لو وريجيو كروك داينيله يوضل لو قدسا يو مشروع وضل لو قدسا داينيله مقدشو سيكستا بها تيمر كاتنين كاستا كحيريسو waxaa muuqata xasa cali qeyre inuu xilli kala guurka ka faa'iideysanayo uga faa'iideysanayo deegaankiisa laakiin xeeldheerayaasha qaar waxay leeyihiin xasan waa ku saxan yahay sababtoo ah dadka kale siyaasiyiinta ah muqsadega ee habargeed iyo abgaal ayaa xildhibaanadoodii wasiiradoodu waxay noqdeen biiraqaatayaal aan haba yaraatee higas jaban lagu aamini karin waxay noqdeen biiraqaatayaal dantooda mooye dan guud aan ka shaqayn marka dadku waxay leeyihiin xasan cali qeyre haddii uu dhisayo degmada Daynil oo doonayo inuu ka dhigo mataqaan degmo qurux badan haddii uu doonayo inuu wado dheer saaro maxaa diidaya wax diidaya miyaa jira waa dhab wax diidaya ma jiraan inkastoo mashruuc shacabka Soomaaliyeed ka dhaxeeyay uu yahay oo loogu talagalay wadada Muqdisho Afgooye in lagu dhiso inkastoo uu yahay mashruuc wadada dheer ka soo baxaysa Muqdisho ilaa mataqaan tiyaatarka in lagu dhiso ay ahayd inkastoo mashaariicdan meel loo asteeyay haddana calaamad su'aal waxa saaran مشروع وديس كحريس جوهري مقدشو محمر دونا وضدا أما وضدا لما سيي مشروع أفجويه يمقدشو وديس كحريس دار على سو أو إذا دمشق كده أمر هذا العياس اللي هي مقالك على الدعوة كسوق الجاية شعر المعتدين وين قربان النوجوجية وعمل بالعمل يا خطبي هذا عام المعتدين هذا مكة وحاجة إن مكة ورئيسة لقحدك يا صميريا ملاحظي قرك بلادي قدوميها وقامليو يحلبانو كاران حلبان تحلو يرقى الصعبة يقدوميها تكمدة سودوا هذا فوق القدومية حلبان الله بسم الله الرحمن الرحيم ليش كده هو
degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa waxaa ka socda dhismayaal horumarineed kuwaas oo lagu dhisayo garoonka diyaaradaha ee Maxamed Khayre Afrax oo dibadda lagu waday iyo wadada degmada oo iyana laami la saarayo. garoonka diyaaradaha ee Daynile horey waxa uu dhisay Allah u naxariistay Maxamed Khayre Afrax oo loogu magac daray waxaana haatan dib u dayactir weyn ku wada gudoomiyaha degmada Daynile. sidoo kale gudoomiyaha degmada Daynile Jaafar ayaa waxa uu dhismo ka wada wadada weyn ee degmada iyadoo laami la saarayo wadadaasi si uu wanaagsanaado maristeeda maadaama dhawaan la furayo garoonka diyaaradaha ee Daynile kaas oo lagu wado inuu ka soo dego qaadka. gudoomiyaha degmada Daynile Jaafar ayaa waxa uu ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha wadada degmada Daynile taas oo xiriirisay isbitaalka Daynile iyo jidka warshadaha dhererkeeduna uu gaarayo 8.5 kiiloomitir. bismillaahir rahmaanir rahiim shalay oo taariikhdu ay 26 bishii saddexaad ayaan ka bilownay wadadan argada ka bilowday Daynile oo wadada Daynile weynid ah shalay iyo maanta shaqada aan ka wadnay nadaafadii iyo jigadii iyo qashinkii wixii ka qaadeenay insha Allah waxaan rajaynaynaa marka aan ka dhamaano wasaqdan iyo qashinka inaan ku bilaabo doono laamigii isku xiraayay isbitaal Daynile iyo argada ama iskuulkii kulliyadda inta ka dhaxayso wadadaas oo ah 8 kiiloomitir iyo bar shaqadeeda mar hore aan ka shaqaynaynay haddana waxay noo maraysaa bilowgii shaqada wixii tala iyo hadal iyo waa soo dhamaatay markaan shaqadii aan noo bilaabatay insha Allah hadda waxaan ka shaqeynaa marka waa bacaadkii iyo qashinkii iyo wixii wadada hareeraheeda yiilay aan shalay maanta ka radaynay marka waxaan ay dhimaadaan ka bacdi waxa bilaaban doonto dhismihii laamiga dalay ma wajhi koowaad laamiga habka loo dhiso ma aha laamiga wax uu dambeeyo waay laamiga waxa ka horeeya jaaya ka horeeya dhismo badan ka horeeya keena ka horeysa ka bacdi laamiga oo fuul doona insha Allah kuwa shaqada la socoto laamiga iyo si had u bilaabato u socdo doona dalay Nuno Xuseen Sheekh Maxamed Daynile TV magaalada Muqdisho. وادي بريبا وذا عصور الله سعو وكستانا أغو 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 إذا عدويت حدانا وعن وقع عصب وورفا في الحسالة وقع عصب وورفا في الحسالة إذا عدويت حدانا وعن وقع عصب وورفا في الحسالة وقع عصب وورفا في الحسالة وريال والحقيقة سوتليو وقع عصب وورفا في الحسالة أولا الوعدرها الدنيا ذاي وقع عصب وورفا في الحسالة سيداد لسعود رواياي وقع عصب وورفا في الحسالة إذا عدوانات سنو وعنو وقع عصب ووربا إلو بوغاي وقع عصب فالصعو ولا العرب قدالها إذا يارو وديت بسيو ورحيسة لهي وقع عصب فالصعو ولا العرب قدالها إذا يارو وركيسكو قوري وبسايد كادو وقع عصب فالصعو ولا العرب قدالها إذا يارو ودوني كورا بنيسايو اسردي وريال وطيقوين با وقع عصب لغا وضا ورابتايو مرتيو إدهيو أغيسيستا وقع عصب لغا وضا دقيستاي وكيل لذا جوغ وحياي على سعو وقع عصب وحيدايو وعيقي وقتي جاي لسعطايو مبكيذا نواي ميسانو
إذاعة وين حدانا وعن وقع عصب وورفا في الحيسة لهين وقع عصب وورفا في الحيسة لهين إذاعة وين حدانا وعن وقع عصب وورفا في الحيسة لهين وقع عصب وورفا